Sihayaha wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda Abbas Cabdullaahi Mayow ayaa ka warbixiyay xeerka hay'adda wadooyinka Jubbaland oo uu shalay saxiixay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. Xeerkan oo ay diyaarisay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland ayuu wasiir ku-xigeenku sheegay in baahi weyn loo qabay isla markaana uu muhiimad gaar ah xambaarsan yahay. xeerkaas ama wuxuu ahaa hay'adda wadooyinka Jubbaland kaasoo uu soo maray labada golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka Jubbaland ugu dambeysna uu madaxweynuhu shalay uu saxiixay oo runtii baahi weyn u qabtay dowlad goboleedka Jubbaland maadaama waddankan uu soo maray burbur iyo dhibaatooyin badan. arrintaasu hay'addaasu waxa ay kor u qaadi doontaa wax ka qabadka wadooyinka iyo horumarintooda ha noqoto isku xirka magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland. Dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland Abbas Cabdullaahi Mayow ayaa ka warbixiyay kormeer uu dhowaan ku tegay waddo cusub oo laga hirgeliyay galbeedka magaalada Kismaayo. Wadadan oo uu dhowaan xariga ka jaray wasiir ku-xigeenka ayaa waxa ay isku xirtaa kontaroolka Sacmooja ee galbeedka magaalada Kismaayo iyo deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo. waxaan kormeer iyo xarig jarid aan ku tagnay wadda jaay la saarayay dhirkeeduna uu yahay 5 kiiloomitir kana leexata Sacmooja aadana dhanka Goobweyn. runtii waddadaas oo maritaankeedu gaadiidka dhibaato weyn ay ku qabeen bacaad iyo buuro bacaad ah oo runtii aan isleeyahay way ku nasan doonaan. waddadaas waxaa fankeeda bixiyey hay'adda GIZ iyo allied oo implementation ahayd. waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo labada hay'adood hay'adda GIZ iyo allied oo ayaduna implementation ahayd. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo injineeradii wasaaradda oo min bilow ilaa dhammaad shaqadaasi gacanta ku hayay oo aan isleeyahay muhiim ayay u ahayd talooyinkoodii iyo tusaalooyinkoodii iyo toosintoodii. ayagana waxaan rabaa halkaa inaan mahad uga celiyo. sida aan ognahay wasaaradda howlaha guud ama guud ahaan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam